Assalaamu calaykum asxaabta qiimaha badani kusoo dhawaada daawashada fiidiyoon haddii ay tahay martaada duwareysa aad danayntan soo boqoto bariis subscribe saar. Maanta waxaa rabaa inaad dhahdo morning routine-daada. Morning routine markaan waa waxay qoray tumanaan buugaag oo la diyaariyey tumanaan wareysi iyo fiidiyoon. Dadka badanaa waxay ka fikiraan wuxuu tari lahaayeen ama tusiyaadi lahaayeen morning routine-dooda. Halka ay jirto waxyaabo badan ay mudan tahay oo la rabo in la reebo morning routine-daada. Hadda maanta waxaan tuwahayaa 6 qodob ay tahay inaad reebtid morning routine-daada. Qodob dood ayaa si xirta yar aad waqti xadirtaan taxan toosid waa mobile-daada. Haddii aad martaas soo taxdo subaxdii aad fiiriso mobile-daada ama checking dareyso social media, arrintaas waa inaad joojisaa. Laba sababood awgood. Sababtooda ayaa inuu martaas soo taxday oo jirtaada oo diyaar u yahay inuu qabto shaqooyin. Haddii aad social media ku bilowdid maalintaas maskaxdaada waxaa tusay stress maayo ayna rabaysaa tiriye waqti u badan inay isticmaasho wixii subaxda ku bilowday oo ah social media. Intaad subaxdii hore aad ku bilowdeed noloshaada social media waxaad ku bilowdaa jimicsi, wax aqris iyo quraac cunis. Haddii aad ku bilowdeed social media sababtoo ayaa waxay tahay adoo doonayo inaad isticmaasho daqiiqad ayaa waxaa arkaysaa toddobaad ama ka badan saacad adoo isticmaala. Halka qaar badan ay seedeen mobile sariirta u isticmaalo ee sababi karto nerve damage dhaawac soo gaara neerfahaada. Qodobka ayaa wuxuu yahay markay subaxdii ku qeyriso saacad inaad damisid. Taasi wuxuu dhibaateynayaa qorshahaada maalintaas ku degsanay. Mar allaala markay saacad ku qeyriso waa inaad hore ka soo taxday. Qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay complain ama eedsaso calaacal. Dad badan ayaa jecel subaxdii markay soo taxaan inay subaxdooda ku bilowdaan calaacal ama complain eedsaso. Waxayna ku xaalaan inay dareemayaan daal. Waxay dareento calaana inay soo dhaceen waqti dhaqsi ah. Dhibaatada oo complain-ta ama calaacal oo sababi karaya erayada aad dooratay inaad isticmaashid ama naftaada ku cabiraysid ayaa dhibaateynayo heerta maskaxdaada iyo heerta firfircoonida. Markaad soo taxdo inta calacaleed maxaa diiday inaad erayo positive ah aad ku bilowdo subaxdaada hore iyo tuuma hadino intaan heesano. Qodob saddexaad ayaa wuxuu yahay nadiifi meeshaad ku nooshahay ama aad ka shaqeynaysid subaxdii markaad soo taxdo. Taasi ayaa waxaad ku dareemaysaa comfortable iyo raaxo. Qodobka 4 qorsheynta maalintaada ee subaxda. Dad badanaa ayaa waxay jecel yihiin inay maalintooda qorsheeyaan subaxdii. Laakiin subaxdii markaad soo taxdo adoo qorshe lahayn adoo wax ku qorsheysaneen waxaad dareemaysaa isbuuqsanaan. Qorsheey maalintaada habeentii intaadan jiifan kahor. Qodobka 5 ayaa wuxuu yahay ku bilaabista maalintaada hadallo negative ama hadallo xun. Aad ku bilaabid maalintaada hadallo negative ama hadallo qalifsan sida wararka idaacadaha ka soo baxo subaxdii oo maskaxdaada u deysan karo naxdin. Maalinta subaxdaada waxaad ku bilowdaa sida hore u sheegnay jimicsi, wax aqris iyo warar qabo. Halka qodobka 6 uu yahay subax walba inaad soo taxdo waqtiyo kala duwan. Sida ugu fiican ee awoodid waxaad ku daydaa subax walba inaad soo taxdo waqti isku mid ah, waqtiyo consistency. Taasi ayaa caafimaadkaada iyo firfircoonida maalintaada wax badan kaga caawin doona. Inshallah waxaan rajeynayaa inaad wax badan dood haddii aad fiidiyoo heshay please like saar ayloowin inaad dambaleyda furato. Mahadsanid. Haddii ay tahay martaada duwareyso aad danayntan soo boqoto please subscribe saar dambaleyda furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyooda dambe aad danayntan kusoo diri doono.